qof kasta oo arrintaa awood u leh inuu u soo hijroodo goobta ay raayada jihaadku ka taagantay una gargaaro walaalaha jihaadka markaa meesha ku sugay ee bartaa jooga kusoo dhawaada Awow Media marar badan waxaan aragnaa dad ka imaanaya dhinaca waqooyi ee Soomaaliya ama Somaliland kuwaas oo imaanaya iyagoo markaasi ah fanaaniin ama abwaano culummo ganacsato wixii ay doonaan ha ahaadeen kadibna qaarkood ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab halkaasna ay ka dagaalamaan iyagoo markaasi sheegaya inay jihaad ku jiraan oo ay la dagaalamayaan dad gaalo ah oo ku soo duulay dad badan ayaa su'aasha isweydiinaya dadkan iyay la dagaalamayaan ma dadka Soomaaliya ayaa qaybna dhiigooda banaan yahay qaybna uusan banaanayn koonfurta Soomaaliya ma waxa jooga dad gaalo ah ama dhiigooda banaan yahay oo aan joogin gobolada kale ee dalka su'aalahaas dad badan ayaa isweydiinaya haddaba su'aashaas lafteeda waxaa la weydiiyey Sheekh Aadan Sunni oo ka mid ahaa culimadii Somaliland caanka ahayd laakiin dhowrkii sano ugu dambeeyay ku biiray kooxda Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya halkaas oo ku sugan yahay ilaa 2022 Aadan Sunni waxaa la weydiiyey Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya maxay ku kala duwan yihiin haddii aad jihaad ku jirtid maxaa halkaas uga jihaad weysay oo uga dagaalami weysay su'aashaas ayaa la weydiiyey marka jawaab ayuu bixiyey jawaabtaas inaan wada dhageysano ayaan jeclaan lahaa kadibna aad ka soo jawaabtid bal ma saxba oo waa soo sheegayba mise waxba ka qaldan su'aashaasi horta waa su'aal aad u weyn oo wajihina in la isweydiino way haboontay waxaan leeyahay Aadan Sunni kaliya kuma wajahaniye cidda waqooyi ka soo hijrootay oo dhan waa gartay lagu jiheeyaa waana fadhi ku dirarka la isku weydiiyaa reer waqooyiga kawaadirtiisii waaweynaa ama nin culimaa ha noqdaan ama nin abwaana ha noqdaane dee jihaadan koonfurtay u soo yaacayaane maxay Hargeysa jihaadka uga fulin lahayd maxay Hargeysa jihaadka uga fulin waayeen halka ka soo dooneen waxaan leeyahay jawaab baan bixinayaa waana la isweydiiyo waa munaasabe jawaabteeda si fiican dhigaha la aamanaysiiyo insha Allah biidnillah dhowr qodob baan kaga jawaabaya qodobka koowaad haddii raayadan jihaadka boqcad dhulka ka mida laga taago oo jihaadkuna uu noqdo mid halkaa ku qumay oo ka hirgalay waajib waxaa ku ah sharci ah qof kasta oo arrintaa awood u leh inuu u soo hijroodo goobta ay raayada jihaadku ka taagantay una gargaaro walaalaha jihaadka markaa meesha ku sugay ee bartaa jooga oo hataa waxa ugu yar u samayn karaa waxa sawaadul aacdam bay culimadu yiraahdaan waa inuu higilka u buuxiyo taas waa qodob waa waajib sharci ah oo waliba uu taakilayo marka aad waxaad aaminsantahay halkaad ku nooshay ka hirgelin kari weydo ee aad la jahri weydaad lagu diido inaad ka hijrootay tahay waajib noqonayso waata labadaas horta gundhig oo ah waji kale aan uga jawaabo su'aal aniga ku soo celinaya dadka waxaan rabaa inay sheegaan maxay tahay sababta Nabi Maxamed kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay Madiina ugu hijroodeen iyadoo oo Makay u dhasheen waxaygana lagu bilaabay rasuulka kaleey salaatu wasalaam dhulkan aynu ku noolay boqcad ugu nooli ugu fadliga badan waa muxuu Nabi Maxamed ugu hijroodiyay saxaabadiisu Madiina u qabteen ay u tageen miyaanay mushrikiin wasaniina ayaa 360 sano u yaaleen inay bartaa uu jihaadka ka bilaabo miyaanay ahayn oo iyadu uga mudnayn in laga xoreeyo qurunka shirkiga iyo mushrikiinta jawaabtaas dadka su'aashana weydiinayaan hor dhigay day ku margadeenna ana jawaabta siinay waxay tahay Nabi Maxamed wuxuu helay kaleey salaatu wasalaam dhul carrasan oo ah inuu ku beero dacwada tawxiidka dhulkaasoo aqbalay in Ilaahay lagu caabudo si xorriyad ah dabadeedna shareecada islaamka lagu dabaqo ka bacdina lagu diyaar garoobo oo la nidaamiyo juyuush la tadriibiyo la tababaro markay u dhammaystiranto markaa dhammaystirka diyaar garooguna waxaa filayaa inaad jawaabta Sheekh Aadan Sunni aad dhageysatay ma saxba oo sidoo sheegay baa mise waxba ka qaldan nala wadaag aragtidaada